daawadayaal ku soo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed waa warkii shiilaa ee aan ku shaandhayn jirnay propagandooyinka laga wado deegaanada Soomaalida ee ay idaacadan uga barateen maanta saddex qodob oo xasaasi ah ayaynu isku qaban doonaa. qodobka koowaad wuxuu daba jabsanayaa kii hore aan hore u duubnay ee pathological lying-ka dadka maskaxda ka jiran ee beenta sheega. qodobka labaad wuxuu noqon doonaa technical burco iskuulka laga soo dhacay meesha burco ee berbere la geeyay ka saddexaadna iskuulka dacaayada lagu furay ee magaalada Hargeysa wadanka Jasiiratul Waaqwa ku yaala ee alam ee lahaa diinta masiixiga ayaa lagu dhigaa. barnaamijkeennii hore ee pathological lying-ka ama dadka jiran ee maskaxda beenta sheega comment-ka hoose comment badan ayaa lagu soo qoray. waxaa indhahayga soo jiitay laba arrimood. gabadh dadka intellectual-ka ee daawada dhalinyarada ah ka mid ah Summer Oost oo xusuusisay arrin aan ka tegay oo ahayd ninkii loo jiray Shakespeare inuu magaciisu ahaan jiray Sheikh Subeir oo ka tirsanaan jiray boqortooyada heegada ee Jasiiratul Waaqwa oo ka tegay magaalada Dabiile isagoo diyaarad si raacay uu ninkii Nabruud loo oran jiray uu ku waday oo Ingiriiska lagu geeyay si halka Queen Victoria intaanay soo dirin shaabadihii iyo waraaqihii loo soo diray boqortooyada oo u baro afka Ingiriisiga. waxaa leeyahay inta aad iyo aad baad ugu mahadsantahay Summer Oost. isna ninka oo dhalinyaro ah oo ii soo qoray ka private igu soo diray wuxuu intellectual-ka ka mid yahay wuxuu ii sheegay haragii digaaga ay boqortooyadaasi waqtiga Victoria kaga saxeexday badda dhimatay ama baxril meydka ama dhirsiiga inay dhulka ku soo degi kareenin haragaasi inuu yaalo madxaf ku yaala xidigta dagaara ama Mars. labada markaan halkaa ku dhaafo qodobkeena aanu ka hadlaynay saddexda qodob ee saaraa kii ku xiriirsanaa pathological lying-ka Sigmund Freud ninka la yiraahdo ee neurologist-ka ahaa ee Austria cilmiga la yiraahdo neurology-ga ku takhasusay ama neurological psychology-ga labada cilmi oo iskala maskaxda neerfaha dadka waxbarashada qofka maskaxdiisa dhaqankiisa ayaanu dib ugu qabanaynaa saa dhalinyaradiina iyo aqoon-yahankiinuba ugu cabirataan dadka meesha jooga maadaama aynu hore u soo calaamadnay aynu ogaanaynayn pathological liars. social cognitive theory of personality assessment ayaa la yiraahdaa aragtida ama cilmiga mujtamacu ay ku qiyaastaan qofka shakhsiyadiisa muxuu yahay. dadkaanu ka hadlaynaa waa maxkamadii sare, waa muuse, waa militariga, waa taani, waa maaliyadda, waa dekada, waa wasaaradda duulista, waa wadooyinka, waa caawimada dadka, waa cashuurta, waa gobolka cagaagan, waa unaga ayaa leh saddex xagaaf unba caalamku ama saddex aragtiyood three theories ama nadariyaad unba caalamku markay bulsho ama qof ay eegayaan shakhsiyadiisa ay qiyaasayaan la qaataa. mid waa taariikhda waa historiga qofkani halkuu deganaa muxuu soo maray xaggay ahaayeen dhul ma lahaayeen xoolo ma nool ma lahaayeen beere bariiska laga beero ma lahaayeen mise xasiid unba la kor fadhiyey. ka labaad waa philosophiga oo ah xikmadda habka dhaqanka afka mahmaahaha gabayada geeraarka. xikmadda ugu weyn ee gobolkan cagaaga taallay waxa ay badda oo maraq ah iyo cirka oo kinis ah ilaahay oo quudka awliyada ha naga qadinin oo barjaha laga wado intaas aad iyo psychology-ga oo ah cilmigii maskaxda qofkan xaaladiisu xagee ku socotaa. xagaafkii Sigmund Freud ninka Austrian-ka ahaa ee neurology-ga ah ayaynu wali haynaa 5 qodob ayuu ku soo koobay. bulsho ama shakhsi marka la cabirayo ama la eegayo waxa uu yahay. ka koobaad waxa weeye dhaqanka hadalka ballanta runta iyo milgaha uu qofkaasi leeyahay marka hore bal in la darso dareenka gudaha ee qofkaasi uu dareemayo iyo dhaqdhaqaaqa falceliskiisa ma inferior ba ma qof inuu gumeednimo dareemayaba ma qof isku kalsoon oo waxa uu sheegayo waxa qalbiga kaga jira ay isku mid yihiin ba. ficil celiskiisa marka ay mushkil dhacdo ayaa laga eegaa. tusaale gaaban Musabix markuu tagay Ethiopia waa arkayseen uu lahaa waxaan hor fadhiistay Abi oo waan kaba cabsaday marka ka soo baxayna telefoon ayuu soo diray oo halhaleel ayaan kaga cararay anaga balan lahayn hudheelkaygii si aan ugu tago meeshii uu igu yeedhayay oo farmaajo la igu hor fadhiisiyo kadibna halkaa aan lacag ugu weydiisto. shakhsiyadaasi sida ay wax u maarayso inta maskaxdeedu maxay maarayn karaysaa intee wax ayuu saacadiiba uu qofkaasi qaban karaya mashaakilka taagan ee meesha ka dhacaya ma u warhaya mise pathological lying-kii beentii unba lagu asturaya. waa arkaysa nimka kuwii lahaa xisbigan ka dare ninkii meesha ka cabinaya ee qabyad tire ee soo kaxaystay TV-yada markuu arkay inaan meesha waxba loo ogolay intii qof ee jinka dagaagay ah ay soo barbar istaagtay ee intuba ay beenta sheegayeen xanuunkan hore u soo sheegnay tan ayaa ka mid ah oo falceliskii neurology-gana way soo gelayaan. deegaanka iyo korniinkii hore ee qofku meesha uu ka yimi waxay ku reebtaa fikradiisa iyo dhaqankiisa iyo tabaamushihiisaba arrin aanu ka soo kaban karaynin. waa ereyga afka Soomaaliga iminka ku soo batay gobolada waqooyiga ee loo bixiyay ciil qabayaasha halka uu ka soo baxay waa ninka la yiraahdo Sigmund Freud
qiyaasta aqoonta iyo kartida shakhsiga qofkaasi uu leeyahay oo la cabiro haddii aad 3 daqiiqo raggaa meesha la igu soo ururiyey loo xidhay suularka aan la fadhiisan lahaydeen waa arki lahaydeen waxay noqon lahayd biyo coldhaashay waxa meesha ka socdo dhaniba istaraatiijiyadda dhaqan-dhaqaale ee shakhsigaas ama shacabkaasi uu leeyahay dad buur kala jeexan iyo islaamo qoryolaalmo kor taagnaadeen haddii markii hore si wanaagsan loo soo koray 5 qodob ayaa lagu soo koobaa 5 qodob wixii ka soo hadhay idinka ayaan idiga tegayaa intellectualka dhalinyaradu waxaanu idin leenahay gudbiya oo fuliya oo badiya oo isgaarsiiya aqoontan si aad dhammaantiin ay qof waliba uu ugu darsado alcilmu bayna talaamiid been hore u soo nidhi sidaa dadkaas ay warka inoogu soo kala wada dirayaan si ay isu wada gaarsiisaan oo aanay waxa inooga noqonin biyo coldhaashay dhammaantiin qodobka labaad eenu ka hadlaynaa waxa weeye iskuulkan alam la yidhaahdo ee magaaladan Hargeysa ku yaala waddanka Jasiiratul Waaqwaaq ee lagu furay dacaayadda leeyahay diinta masiixiga ama diinta gaalada ayaa lagu dhigaa fikradana ay soo fuliyeen wadaana ka dambeeyaana ay fool eriyayaan nimanka la yiraahdo heegadu marka arkeen iskuulkaasi uu noqday iskuulada ugu sareeya magaaladaasi dadka ka soo baxayna ay noqdeen dad starisa ayaa la yidhi share sidii caadada inoo ahayd ee wax walba la idila lahaa dadkiina suuxsan ee meesha ku nool sidii TV-gii sahan TV ee ninkii milkiilaha la ilaa maanta uu xidhan yahay heegada sheerka loo weydiistay kan waa la xiri kar waayay maadaama dadka deegaankan Hargeysa jooga ay yihiin sababta awgeed ayaa dacaayadan iyo propagandadan lagu furay waxaan arkayay niman shiiqaal hawiye ah oo nimankii TV-ga lahaaya oo ka cabanaya oo la Jasiiratul Waaqwaaq ama Somaliland ama Isaaqay waxaanu leenahay gabaygii deerwaaba halka ka taaganay hanoo simina arinta waanu ka murugoonaaye nimanka iskuulka xidhay waa Muuse Biixi iyo reerkooda heego nimanka la yiraahdo ama habar awal afka aad taqaanaan iyaga ayaa u dooranaysan oo godobtiina haya dacaayada iyo beenta halka iskuulka lagu afuufay ee la yiri diinta Kiristaanka ayaa lagu dhigaa sawiro ayaa Nairobi iskuul ku yaala oo Kristiyaana laga soo qaaday caruurta u dabaaldegaysa maalinta Ciidul Masiixiga ama maalinta gaalada u dabaaldegto Christmaska sawiradaana niman culimo ah oo reer Hargeysa ah ayaa hoosta laga geliyay oo daacada oo iyagu moodayay inaan dadkan islaamkii been sheegin islaamuna been sheeg baa islaamuna run sheeg baa la yidhi islaamayna run uga qaado ayaa afka loo geliyay tasawirada halka laga soo qaaday sawirada caadada lagu ahaa ee pathological liarisku ay yaqaaneen ee la isku dhadhajin jiray waayo wax xaqiiqo ah loo bareeri karaa ma jirto nimanka culimadina way iskala kaceen sidii dhurwaa uu kadkiciyay culimada laftooda waxaan leenahay war sawirada la idin keenay dib isaga baadha ee iskuulka lagu dacaayadeeyay dhangaagaalaha qabaylka kala ee waxaan buunbuunayna waxaan leenahay si in aragtiya si dadban yaana ugu shaqaysanin heego niman la yiraahdo oo aan afka la idin gelinin iskuulo laga doonayo ama in la wareego ama in la xiro ama in share la yeesho dhalinyaro qodobka saddexaad ee aanu maanta ka hadlaynaa waxa weeye Burco Technical iskuulkii loo oran jiray ee 60 sanadood ayaa inta ka badan soo jiray hay'adda la yiraahdo GIZ ee Jarmalka ahi ay fangelisay ama ay maalgelisay in dib halkii uu ka dhisnaan jiray looga dhiso arrintaas oo ay uga dhaarteen heegada madaxdeedu oo la yidhi waxa loo gudbinayaa Berbera iyadoo aan loo eegin population tirada iyo deegaan meeshaas inay tahay meel iskuul laga dhisi karayo waayo magaalo xeebeed saddexda agaasime ee arrinta ka taliyay iyo Muuse Biixi oo madaxa iyo ninka la yiraahdo xildhibaan Salla Cale saddexda xildhibaan ee go'aan ka qaatay in laga raro iskuulka magaalada Burco oo ku caan baxday in sayladeeda xoolaha digada iyo neefka dhintay lagaga tago wixii manfaacana Berbera lagu qaato oo lagu cashuuro ayaa iskuulkaana halka la geeyay saddexda agaasime waxa la yiraahdaa Mubaarak Cabdullaahi Ibrahim wasaaradda qorsheynta ayuu joogaa waa nin habar awala Ahmed Abubakar Maxamed way hor yaalaan wasaaradda waxbarashada ayuu joogaa waa labada wasaaradood ba xukuma in labada muxallalkii ay kor joogaan Maxamed Aadan Cilmi wasaaradda arrimaha bulshada saddexda nin iyo Muuse Biixi iyo ninka la yiraahdo Salla Cale oo ka tirsan iskuulka boardkiisa ama gudiyada sare ee maamulaya ninka la leeyahay guddiisa uu ka tirsan yahay xildhibaan Salla Cale waa ninka la hablaha garxajisku ayaxa ay qabqabsanayaan oo suuqa ay wareegayaan marka waxa ay caruurtu ka baranayso kuwa meesha geeyay heegada ayaynu weydiinaynaa inagu dumar waxba kama sheegno oo dhaqankeena maaha laakiin ninka Salla Cale waxaan ku leeyahay islaan armalah oo kibirtoodeedu waxooga xoolaa uga dhintay ayaa inta meel buro u baxday ku kaadaday sidaas markaa dhulka ugu daroolisay markaas inta dib saa weegtay bay allo weel ma yahay wax deeqa hadii loo helo aanu soo gunaanado Berbera meesha la yaado dadkii ku soo dagaalamay ee sumini iyo ku abtirsan jireen waa ogtihiin oo imika wadibad wareeg dadkii fadhiyay meelaha qaxootiyada ay fadhiyeen ee dulcad ee daabaqaada iyo macalhayaha ahaa ayaa gacanta loo geliyay iyadoo system gacanta loogu geliyay ay dadka meesha xoreystay ay lahaayeen
laga gacan maroojiyey halkaa waxay idii muuqataa in meesha tahay xeeb aad u kulul oo xilli uun la joogi karayo sababta awgeedna iskuul technical ah oo 24 saacadood overcoat la gashay yahay dharkii shaqada inaan lagaga shaqayn karaynin laakiin qabyaaladin dhalacaana sida loogu diiday dadkii deegaanka lahaa ee ku soo dagaalamay ee ku baabay kii ugu burco joogayna intaa loogu daray laakiin waxaanu leenahay arrintaa heegadu way ku mahadsan tahay iyo ninka salla calee la yiraahdo iyo wixii la halmaalaaba waayo raganimo ay dadka dheer yihiin weeye maadaama dadkani ay suuxsan yihiin jasiiratul waqwaaq boqortooyada ka tirsan wixii mucaawino ah iyagoo minority ah oo farikutirisa iyo wixii iskuula iyo wixii go'aana iyo noloshoodaba in iyagu ay kala wareegaan kuwana ay daawadayaal wanaagsan ka noqdaan waxaan moodaa nimankan inay idii qaateen anu dhaxal maayo jinka dagaaga dhalinyarada inaad tihiin ilowshiyaha umul oo waxa meesha ka socdana aydaan garanayn wixii ay sameeyeen iyo waxa ay yiraahdeen iyo waxa godob kal shaalo u taala taburca u taala taargeysa u taala taboorama u taala intaba inay moogayiin oo moodayaan in la iskula kor wareegayo sidii berigii hore ee caadada ay u ahayd dhalinyarada jinka dagaagay ee waxan oo iskuul ah saxeexaya ee waxan oo cilmi ah idugu saxeexay ee dastuurkan shaatiga ah ee la gashay yahay ee muxallalka iyo kuwa mucaaradka ah ee riya raaxor kacayo waxan oo dhan idugu faafiyay lafteedu waa milgalaan marka inaad ka sugtaan waqtiba ma aha dhalinyaro dad socially inferior ah sidaan u soo imika theory-ga ama aragtidii Freud aynu idugu soo sheegnay mentally na pathological liars ah xaggi bulshadana in gumeednimo iyo dhac iyo been iyo tuugo kaga jira maskaxdana ka jiran jin dagaagay ay sandareero siiyaan ina u daba fadhiisataan taa lafteeda ayaa milgalaan idinka idugu ah hagardaamana ummadan ku ah kuwa boorama jooga iyo kuwa laascaano jooga iyo berbera laga saaray ee iyagu lahaan jiray iyo kuwa cergaabo jooga intaba waxaanu ku leenahay fallaadhi gilgilasho idagama hadho ninka raarata ah ayaa ugaarsi tagay fiidkii uu iska soo noqday wuxuu arkay bakayle meel jooga fallaadhi ayuu ku galay dhig ayuu kala helay uu kala cararay li halboole kaga dhufane waxna maad gadin goorna maad gadin meelna maad gadin ayaa lagu yiri halboole maad goynin waqti ilay soo jeedo kubaad ridin waxa dilaysana waa bakayle dadka meesha jooga tabartoodu waa nooca waa bakaylaha weeye la cararaya ee ummadda la idii soo dhex raacay ee beenta iyo gabaagurdayska iyo jindagaagayska idugu haysaa ee number 1 ka ah in la iska qabtaa waa nimanka intaas oo qodob aynu soo sheegnayna way ku caday fidiya idaacada isgaadhsiiya waxana weeleeya wixii war ee haysaana noo soo dira taliya tusaale aad iyo aad u mahadsan labada qof ee dhalinyarada ah ee soo wargeliyay warka ay soo diray dhammaantiin waxaanu dileenahay nooli kulantee